madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan shirkan jiraad u qabanay halkan inaan wax ka niraahdo xaaladaha cusub dalka ka jira gaar ahaan arrimaha fatahaadaha ee saameeyay dowlad goboleedyada koonfur galbeed Hirshabeelle iyo Jubbaland meelo kamid ah sidaas daraadeed dowladda federaalka xukuumadeeda annagoo xeerinayna muhiimadda ay leedahay u gurmushada dadka iyo deegaanada waxyeeladu ka soo gaareen fatahaadda loona baahan yahay in si degdeg ah gurmad bini'aadnimo loogu fidiyo meelaha iyo xubnaha ku tabaaloobay musiibadan dabiiciga ah oo ay sababtay inay webiyadu soo karkaara jabsadaan geystaanna khasaaro waxaan doonaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loogu fidiyo gurmad degdeg ah sidaas daraadeed iyadoo ay madaxda dowlad goboleedyadu ay goobjoog ka yihiin ayaan waxa aan magacawnay guddiga ay magacyadoodu hoos ku xusan yihiin oo ugu horeeyo Xamse Saciid Xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo ah gudoomiyaha guddigaas Marwo Dr. Fawziya Abikar Nuur oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ah wasiirka wasaaradda amniga Marwo Fawziya Maxamed Sheekh oo ah wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha Saciid Xuseen Ciid oo ah wasiirka wasaaradda beeraha Abdullah Goodax Barre oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamaal Maxamed Xasan oo ah wasiirka wasaaradda qorsheynta Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo ah wasiirka warfaafinta iyo Isaaq Maxamed Maxamuud oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha guddigaas oo aan rabno inay howl galaan sida ugu dhaqsaha badan oo bilaabaan shaqadooda maanta ayaa waxa laga rabaa inay xiriiriyaan shaqada ay xukuumaddu wado ka shaqeeyaan arrimaha aan kor ku xusay u gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee kala jooga dhammaan meelaha ay saameeyeen fatahaadaha hadda dhacay iyaga oo la shaqeynaya maamulka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay saameysay arrinkaasi sidoo kale dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan guddigaas ahmiyadda ugu horeysa inta xaaladani ka xalismaysana loo weeciyo sidii dadka Soomaaliyeed loogu gargaari lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha ay arrimahan khusayso in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado dadkaas xukuumadda federaalka iyadoo ka ambaqaadaysa dhibaatooyinka biyo la'aanta iyo fatahaadda dalka ka jirta oo mar walba soo cusboonaata waxaan hadda bilownay inaan samayno qorshe 5 sano ah oo looga hortagi doono oonka iyo fatahaadda taasoo aan kala shaqayn doono dowlad goboleedyadna rajayn doonana muddo 5 sano gudahooda haddii Ilaahay yiraahdo in lagu soo afjari doono fatahaad iyo oon iyo biyo la'aan dalka ka dhacda haddii Ilaahay yiraahdo sidaas daraadeed ayaan waxaan dowlad goboleedyadana ka codsanaynaa inay ka wada shaqeeyaan xuduudahooda dhinacyada kala duwan si shaqadu ay u dhib yaraato cid walba oo Soomaaliyeed ama ganacsade ama siyaasi ama culumo oo arrinkan wax ka geysan kartana iyagana waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay in loo gurmado waa mahadsantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh